gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya inay hurinayaan dagaalka Laascaanood waxaana uu sheegay inay sameysteen koox lagu magacaabo G21 shakhsiyaadka uu magacaabay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas haddaba Cabdiweli ayaan kula xiriiray khadka telefoonka anigoo weydiiyay sida uu u arko eedeynta loo jeediyay waa maasantahay adeer warkaas G21 waxaan ka maqlay ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe waxaasina wax ka jirahay ma jiraan sababtoo ah Soomaalidu dhexdeeda waxba kuma kala qarsoona nimanka uu magac dhabay oo siyaasiyiintii madaxda Soomaaliyeed ahayd madaxweynaha hore iyo wasaarayaal ay ku jireen dad ayagu xataa siyaasad ahaanna waa socda maaha dad wax badan ka dhaxeeyaanna maaha marka qaarkoodna siyaasiyiintu magac dhabay idimo waa la socotaan hadda meesha ay kala joogaan siyaasad ahaan meesha kala joogaan marka warkaas war jira maaha waxa looga dalnaya waxa weeye halgankaas dadkaasi ay xuquuqdooda ay ku sheeganayaan oo ay dhulkooda u doonayaan in ayagu ay maamushaan ayaa waxa rabaa in la qabyaaladeeyo oo qabyaalad lagu sunto mana ahe waa halgan dadka shacabka meesha joogaahay ay xaq u leeyihiin in danahooda ka tashadaan in ayahooda ka tashadaan markii wax kale oo dhan ay feel garoobeen ayaa waxa rabaa dad la socotaan oo maalmo waxa leeyahay Puntland baa soo duushay maalmo waxa leeyahay farmaajo iyo ciidanka Eritrea soo duulay maalmo waxa leeyahay liyu police baa ku jira marka waa contradiction ka iska socdo bay kamid tahay tanina waxa la yiraahdo G21 ma jirto wax shir oo dhacayna ma jirto saan ku sheegay rag noocaasi qaarkoodna xataa inay xiriir xataa telefoon leeyihiin xataa umaleynaya shir iska daayay Faysal oo eedan idin soo jeediyay waxa uu sheegay in adiga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo siyaasiyiin kale ay yihiin dadka hurinaya dagaalka Laascaanood marka ma waxaad leedahay in adiga iyo siyaasiyiintaas kale aadan si uga wada hadlin xaaladda Laascaanood ما أقدر والله بجرته واحد كشرها مجران واحد سياسيين أرنت أسري من مجران ده قف الله يا نبى إنه نتوتر هوش عقطها جاري ينها الله ده كوس كاسي والله يا ضد بدن الصوماليين وده عن بقبيل كذا يجوا أي قاب كأوري حياة أنا هين الصومالي بدن أذو ترى بدن أو دول بدن كلا دون دكتا يا ضد عقطها جاري كوس وأنا كوس حويه أو ورناجو أنو نبدو وحويه social contract heshiis bulsho aan wada galay ma uu jiro dhulkayga anaga u tashanayna masiirkayga anaga mas'uul ka ah intaas uu weey dadku waxa ay sheeganayaan waana koox sax weeye dad badan Soomaaliyeed baa taageeray laakiin siyaasiyiin haybtaas dadkan uu sheegay way wada wadaagaan laakiin yani dad isku siyaasada oo ajenda wada laho kooskaasi qaab qabyaaladaysan ugu jiraahay ma jirto waxaas wax jira ma Cabdiweli waxaa jira dad danaynaya inay ogaadaan mowqifkaada ku aadan arinta Laascaanood marka mowqifkaaga muxuu yahay hadii aad u sheegto mowqifkayga waxa weeye waxaan taageersanahay dadkaasi inay ayahooda ka tashadaan horta waxa la eedeynayaa ma aha qabiil gaar ah iyo reer gaar ah waxa la eedeynayaa oo aan leenahay jarimooyinka iyo crimeska iyo binaanimada ka soo horjeeda galayahay waa Muuse iyo askartiisa iyo dawladdiisa iyo xukuumaddiisa weeye dhibaato badan bay geysteen wala socota magaalada Laascaano isbitaalada la dumiyay maxaa la yiraahdaa goobihii waxbarashada la dumiyay masaajidada baa la dumiyay dad masaakiin lagu galacay artillery iyo mataqaana iyo hobiyayaal iyo taangi manta waxaas wax yani damiirka oo islaamnimada iyo Soomaalnimada midna ogolaanaya maaha marka Muuse anagu waxaan kula tan lahayn inuu ciidamadiisa kala baxo Laascaano iyo Sool wixii dambi uu geystana dil laga xisaabtamo weeye marka dadkaasi waa inay ayagooda ka tashadaan waa inay iyagu masiirkooda ay madax banaanadaan mowqifkaygu intaa marsuu ahaa weeyey haddana ayadan taageersana ma garan maadaama adiga aad tahay mas-uul xilal waaweyn ka soo qabtay heer federaal iyo dowladda Puntlandba soo ma habboona inaad arrintan dhexdhexaad ka muujiso oo aad ka qayb qaadatid dadaalada dhexdhexaadinta ee socda walaal horta dambi dhacaya dhexdhexaad lagama noqon karo shalay horena waan u sheegay 88 anigu arday masters ka sameeyaan ahaa Mareykan oo jooga markii dambiyadu ka dhacayeen waqooyi sida hadda tan aan uga hadlayno uga xunnahay aan uga xumayn marka dambi iyo dad masaakiin oo la qixinayo oo guriyada la qixinayo oo sida dhexdhexaad looga noqon karaa ma ogtahay xadiis nabigu buu ahaa maxay ahayd unsur akhaaka zaliman oo madluuman
waxa weeye qofka Soomaaliga oo dhiban oo dhibaataynayo yani waa in loo hadlaa cidii hadli kartaa oo hadalkoodu meel gaar yahay in wax hadlaan bay u baahan yihiin kaliya maaha Soomaalidu dhan baa taageertay arigan kaliya maaha kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka jawaabayay eedeyn isaga iyo siyaasiyiin kale uu Faysal Cali Waraabe u jeediyay oo ah inay hurinayaan dagaalka Laascaanood wali halka nagala